kusoo dhawaada sheekadii Dhagdheer qaybteedii koowaad. Waxaa la yiri Dhagdheer waxay ka dhalatay qoys sabool ah oo reer miyi ah, ayaduna ilmaha kaliya ee waalidkeed bay ahayd. gabar qurux badan bay noqotay markii ay kortay ee ay weynaatay. rag badan baana weydiistay aabaheed gabadhiisa, waxayna ahayd qof samir badan oo waalidkeed u baari ah. Dhagdheer waxay lahayd magacyo badan oo kale, waxaana ka mid ahaa Xaynawada iyo Dhudi. sababta loogu bixiyay magaca Xaynawada waxay ahayd baa la yiri iyadoo ay jeclaayeen dhalinyarada ay isku filka yihiin sheekada iyo haasawaheedaba wiilal iyo gabdho. habeenkii markii xooluhu soo xaroodaan, dhalinyarada waxa ay ku caway jireen sheekooyinka yaab kale ay Xaynawada u sheegi jirtay barbaartu. markasta waxa ay ku shiri jireen hareeraheeda, wayna tixgeli jireen. sidaa darteed ayaana magaca Xaynawada loogu bixiyay. aabaheed wuxuu Xaynawada ku daray nin xoolo badan oo yarad uu ka qaatay. ninkaasi wuxuu ahaa nin camal xun oo ay dhib badnayd sida loo qanciyo. wuxuuna lahaa jiray Dhagdheer ninkeeda gardheer oo uu dhistay. sidaas awgeed waxaa loo yaqaan gardheere. Dhagdheer ma ayan rabin in loo guriyo ninkaas. markiise aabaheed uu xoolo badan siiyay oo uu reerkoodii ka bixiyay cayrnimadii, ayay ogolaatay inay aafadiisa noqoto. markii ay Dhagdheer la aqal gashay gardheere, waxay noqotay naag wanaagsan oo raaliyo ah si ay kalsooni ninkeeda u hanato. waayo kadib Dhagdheer waxay dhashay gabar, mid kalena waa ay ku xujisay. ilmihii saddexaad gabar bay noqotay. ninkii kuma farxin arintaas, maxaa yeelay sida ragga Soomaaliyeed ee reer miyiga ah caado u ah, wuxuu jeclaa in ay wiilal u dhasho kuwaasoo hanan lahaa hawsha reerka marka uu odaygu gaboobo ama geeriyoodo kadib. rajadaasina odaygii way u suurto geli weyday markii ay naagtiisu wiil u dhali weyday. dulucda sheekada waa sida ay u xun tahay waalidka oo hablahooda guurka ku qasba iyaga oo u xilanaya xoolo, taasoo qoyska burburin karta. waad ku mahadsantahay daawashadaada. haddaba haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena cusub.